marka hore aan bilaaway keligay ayaan ku ahay wixii la soo jiitamo oo la soo dadaalo alxamdulillah adirtaan waxaan team oo wada shaqeeyo. hal abuurka ganacsi ka sokow hibo waxaa laga maarmaan u ah aqoon. muddooyinkii dambe gudaha dalka iyo dibadda waxaa ganacsiga Soomaaliya ku soo badanaya dhalinyarada wax bartay ee samaysanaya ganacsi u gaar ah, shirkado iyo fursado ay xitaa dadka kale ugu sameeyaan shaqo abuur. Seki Cabdalla Ibraahim waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Muqdisho wax ku barta, gaar ahaan jaamacadda UCT. Seki Cabdalla Ibraahim waa arday weli ku jira hayaanka waxbarashada, waana aasaasaha shirkadda daabacaadda ee Colorsign, taasi oo dhalinyaro shaqo la'aan ahayd ka heleen fursado shaqo. waa Seki Cabdalla Ibraahim waxaan dhigtaa jaamacadda UCT University College of Technology. waxaan ahay aasaasaha shirkadda daabacaadda ee Colorsign oo maanta ka howlgasho magaalada Muqdisho. waxaan aasaasay muddo laga joogo 2 sano. haddii aad usoo laabto dhanka jaamacadda waxaan dhigtaa semesterkii ugu dambeeyay semester 8. waxaan ka bartaa takhasuskaygana uu yahay maadada multimedia and video production. sidaas darteed buu igu dhashay anigoona maadadiina baranayo shaqadeedina ku fikiray inaan abuuro. marka hore aan bilaaway keligay ayaan ku ahay wixii la soo jiitamo oo la soo dadaalo alxamdulillah adirtaan waxaan team oo wada shaqeeyo. shaqaalaha ka shaqeeyo waxay u kala baxaan laba kala baxaan. kuwan waa designer, waa designadii wax bay sameeyaan. kuwana waxa waaye mashiinada iyo waxyaabahaas ay noo qaabilsan yihiin. Seki waxa uu tilmaamay in wax walba bilowgooda ay adag yihiin, loona baahan yahay dulqaad, hiigsigiisana uu fog yahay. haddii aad dib loo laabto wax walba markii bilowga lagu soo bilaabayo waxa waa wax aad iyo aad u adag waaye. sabarkeeda iyo xeeladii dulqaadkeeda in loo muujiyo la rabo. marka alxamdulillah wax badan oo soo sabray, caqabado badan oo soo arkay. adirtaan waxaas leeyahay weli meesha ugu fiican duli maan gaarin. hamigeygana waxa waa inta uu ka sii sareeyaa inuu waxa waa la sii balaariyo oo dadkan ama dhalinyarta kale oo asxaabteeda iyo dhammaan asagay kuwa ah ama dhalinyarta Soomaaliyeed dhammaan lagu wada faa'iideeyo. sanad walba waxaa jaamacadaha dalka ka qalin jabiya kumanaan arday, kuwaasi oo shaqo la'aan ah inta badan, halka qaarkoodana ay la yimaadaan hal abuur ganacsi si ay uga baxaan shaqo la'aanta baahsan ee haysata dhalinyarada.